bismillah. wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyaddu waxay ka kooban tahay 8 waaxood. waaxda IT-gu waa waaxda koowaad ee ugu ballaaran waaxaha IT-ga ee dowladda. sidaa darteed waxay waaxdani gacanta ku haysaa degalka guud ee dowladda iyo degalka guud ee dowladaha hoose, kuwaasoo ka kooban 5 degmo. haddii intaa ka imaado wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda, mandatekeeda waaxda IT-gu waxa weeyaan in ay maamusho dhammaan wixii IT u ah wasaaradda isgaarsiinta iyo dowladaba. sidaa darteed 2023 sanadkii hore naga dhammaaday waxaa u fulay mashaariic fara badan kuwaasoo ku suntan sanadkii dhammaaday 2023. sanadkii 2023 haddaynu ka taabanno 2 mashruuc oo waaweyn oo u dhammaaday waaxda IT-ga waxaa ka mid ah casriyeynta adeega dowladaha hoose, kaasoo lagaga soo gudbayo habkii manualka ahaa ay isticmaali jireen. waxaa kaloo iyadana u dhammaaday inay hirgeliyaan oo ay dhammaystiraan siyaasadda nidaamka amniga ee wasaaradda isgaarsiinta. sanadkan 2024 waxaa wasaaradda u qorshaysan gaar ahaan waaxda IT-ga in ay qabato shaqooyin fara badan kuwaasoo ku sugtan siyaasado iyo shuruuc, cilmi baadhis, tababaro iyo capacity building. haddii aan ka taataabto waxaa ka mid ah in ay tababarto oo ay xidhiidh in la samayso dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda, kuwaas oo ah kuwo looga baahan yahay in IT-ga casriyeynta degalka guud iyo emailiskooda ay isticmaalaan. 2, wasaaraddu waxay gacanta ku haysaa oo shaqadeeda maalinlaha ah isticmaalka boortalka guud ee dowladda iyo dowladaha hoose. 2, samaynta iyo ka gudubta oo loo gudbo email official. haddii xarunta wasaaraddu waxay doonaysaa in iyaduna ay dhammaystirto, waxaa ka mid ah inay samayso dhisidda xarunta dayactirka ICT-ga dowladda, kuwaasoo lagaga maarmayo in privatiskii loo geyn jiray qalabada IT-ga ee xumaada, hadday noqdaan kombiyuutarada, hadday noqdaan printerada, in loo helo dhammaan meelahay wasaaraddu ka waax ahaan ay ku maamusho. inay hirgeliso barnaamijkii tababarka hablaha ee la magac baxay Women in Tech, kaasoo maxay ahayd sanad walba la qaban jiray laguna tababari jiray hablaha dhanka IT-ga. in la sameeyo system caawinaya 2 waaxood oo muhiim ah oo wasaaradda ka mid ah, waa waaxda HRM-ka iyo waaxda balaaninka. in la sameeyo system isaguna maxay ahayd visitorisa oo booqashada dadka wasaaradda yimaada. intaasoo system ay doonaysaa in wasaaradda waaxdu sanadkan gacanta ay ku qabato. haddii aan ka gudbo, waaxda IT-gu waxay la shaqaysaa dhammaan waaxaha dowladda iyadoo ku leh waax walba IT oo xidhiidh dowlo leh. waxaa kaloo iyadu gacanta ku haysaa oo xidhiidh dowlo leedahay 5 degmo oo loo sameeyey adeegii boortalka guud oo ah in casriyeyntii degmooyinka waa Hargeysa, Berbera, Burco, Boorama iyo Gibiley, iyadoo ay ka caawinayso hay-adda UN Habitat. waxaan xidhiidh dhow la leenahay hay-adda UN Habitat oo iyaduna ay nagala shaqaynaysay barnaamijka casriyeynta adeega dowladaha hoose.